يوصل سنة ها شلون تنسى وقت اللي ورا السنة ولا ورا السنة والصومالية سياسة ده كلهم ها أوكي سياسيين تي صوماليا يا جودهان سلبب بقى كل عاي ها وورا حق يا حق بقى ها دبيت واحد ميزان صاري وان ترتن وقبته ها salaadiinta ها ugaasiyada ها isimada Soomaalida oo dhan هاي waxaan sir isimada ها ama garaadada ama salaadiinta wareeray ها xagee ugu badan yihiin هي Soomaaliya sanaag ugu badan واي عليو halkaas waxa sababtoo ah ها rifriga ninka la ها yiraahdo siidwala ها marka kubadda cagta oo daawata ها imise meel buu carraa markuu ordayo galabti marna goolkaas uu gaaraya goolkaas uu gaaray marna goolkaas uu carraa ha labada kooxood iyagu is eryanayaan oo labada gool buu kala ordayaan in kala dhalay laakiin isagu labadaba eryanayaan labadaba ha marka dhib orda garaadadii Soomaaliya sanaag ها siidwalahaas ma noqdeen waxa aye qola waxay la socdaan Soomaaliland qola waxay la socdaan Puntland haddana isma nabad geliyaan aye idaacadaha soo wada fadhiisanaya markaas kan laga been sheegaya masaaka kala ku dhufanaya kala la cambaaraynaya marka waa salaadiinta ama garaadada ugu shir jira ay qabad badan waxay dhawaan ku shireen meel la yiraahdo higlada ha iyagoo laba mabda kala aaminsan haye ujeedada weyn ee garaadada Sool iyo Sanaag waxay ahaayeen in dhaqanka iyo siyaasadda ay iyagu hantaan oo gacanta ku qabtaan labadaba la wareegaan oo ay beesha ugu taliyaan haddii ay Soomaaliland raacayso iyo haddii ay Puntland raacayso iyo haddii ay gooni u tashanayaan waxay aad uga soo horjeedeen oo la dagaalamayeen maamulka Khaatumo waxay ka been sheegeen inta higlada joogeen ilaa iyo ugu yaraantii labo garaad oo garaad Salebaan iyo garaad Jaamac labadaba been bay ka sheegeen dabeeto higlada feed baa ka dhacay yes weeriyada garaadadii haye garaadadii daawad tusbaxay cimaamada sidan jiray ma aha waxa ku jira imika rag feediyahana oo sabaxada yaqaana oo legdinta yaqaana oo awaandiina halka waxa ka dhacay dagaal xoog leh oo gacanta la soo tagay haye sababaha ugu waaweyn ee garaadada Sool iyo Sanaag ay siyaasad ugu luntay hal tusaale soo qaadanay meesha dhumay la yiraahdo laba beelood ayaa isku dilay oo walaala oo reer Sool in badan baa ka dhimatay kontineer ka dhintay ilaahu naxariisto intii meesha ku dhimatay inta dhaawacanto ciidaa ka badan aamin labada way ku guul dareysteen inay heshiisiyaan ku guul dareysteen haye waxay kaloo ku guul dareysteen in labada beelood ee meesha ku dagaalantay inay xitaa u quudhaan yiraahdaan intay soo fadhiistaan idaacadaha waxaanu beelaha u soo jeedinaynaa in ay nabadii soo celiyaan iyo xasiloonidii oo ay heshiiyaan intii ku dhimatana waa tacsiideen ihdina ayaa bad moodaa inuu dhaamay in badan oo isaga tacsiid ugu horeeyay ka sheegay idaacada ihdina waa diray hawshii garaadada ihdina waa qabtay isaga markaa hawshaas markaa garaadadaasi waxay xoog saareen oo ay idaacadaha ka sheegeen dagaalo ka dhacay ceelaf weyn oo iyana dhowr qof lix qof ku dhinteen ayay idaacadihii soo fadhiisteen garaadadii Sool iyo Sanaag iyagoo leh wan nabadii lagu soo celiyay ceelaf weyn haddii kale arrintu faraha ka baxaysa dadkii waa tacsiideen aye kuwii dhumayna way ka aamuseen shibbi ka yiraahdeen aye marka interest baa halkaa ku jira ceelaf weyn si kale lama tacsiideen waa interest Allah u naxariisada lafteeda ayaan sometimes interest ku jira ciyaarayn aye garaadadu waxay ay iyana tacsi u direen may waxay iyana ka digeen dagaal geel lagu kala qaaday oo ka dhacay mudug waana waxba ka xuseen geel oo waxba ka xuseen halka geel lagu kala qaatay hubi agteeda ay leeyihiin qolada geel qaaday soo celiya ambaareen baa lagu sheegay garaadada Sool iyo Sanaag waxa markii hore la shaqeeyay aad u soo dhaweyn jiray wadaadada iyo ganacsatada labaduba xadka oo jiraan markay arkeen jaawarsiin waxaan imika ka cabsi qabaa in garaadada Sool iyo Sanaag ay ka qayb galaan oo ay ku biiraan koonfur galbeed Baydhabo sida u socdaan imika Puntland iyo Soomaaliland way dhameeyeen gobolkan kale ee mudug waa dhameeyeen galmudug waa dhameeyeen marka waxa uu hadhow koonfurta soo hadhay Baydhabo halka waxa ka taagan khilaaf aad u ballaaran iyo tafaraar farabadan iyo waxaan u rajaynaynaa hadana kaftanka siyaasadda inay midoobaan dhinacay doonaan ba raacaan in ay meel ba horta isugu tagaan oo xaslaan taas inuu dirayna hawada mareen ayaan hawada marin doonaa qodob kale
isimada dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo saaka shir jiraad ku qabtay deegaanka Higlada ee gobolka Sool ayaa qaadacay go'aamadii ka soo baxay wadahadaladii maamulka Khaatimo iyo Somaliland kaasi oo dhawaan ku soo gabagaboobay dalka Itoobiya isimada ayaa sheegay shakhsiyaad gaar ah aysan matalay masiirka ummadda deegaan Sool Sanaag iyo Cayn waxayna ku baaqeen in shirweynaha ku qaban doonaan magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn waxaana saxaafadda waaqiyay warmurtiyeedka ay soo saareen isimadu Garaad Maxamuud Cismaan Mashqare magaalada Addis Ababa ka dhacay kulamo lagaga hadlay masiirka iyo mustaqbalka goboladan sidaas daraadeed waxay isimadu ka soo saareen qodobadan hoos ku qoran kow waxaanu cadaynaynaa haddaan isimada in aanan kulamadaas wax talo ah ku lahayn waxna ka ogeyn waxaanu cadaynaynaa kulamadaas in aanan talana ku lahayn waxna ka ogeyn go'aanada ka soo baxay wadahadalladaas ma khuseeyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn maadaama aan lagala tashan shacabkooda go'aamadaas waxaan uga jeednaa talooyinkaas la sheegayo ee soo baxay waxaan u aragnaa inaanay ahayn maslaxad ummadani wada leedahay waxaan u aragnaa maslaxad gaar ah oo dad gaari wataan inay tahay ummadda deegaankan deganna maslaxad gaar ah oo ashkhaas shakhsi ama laba ama ashkhaas ka badan ay leeyihiin dad ay arrimahooda gowrici karaan maaha مسؤولينته والله شعبي قاهو وأن وحلينا هذا ولا أقول سراع سباتره إذا قلا أقول سراع وآيه السير لوماريس يمر ولا مرق waxaanu aad uga xunnahay kana horjeednaa kulamada la yiraahdo soobay ka dhaceen wixii ka soo baxayna waa aragnay markii la qabanayana waxba kamaanaan ogeyn markan dambe laga yimina wax khaldan baa laga sheegayaa labada dhinacba
كبهمودي هاي نقبحو ميدوغا كبودي هاي نقبحو موغي كتالي هاي نقبحو موما مطاني هاي نقبحو Bukta,